بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلهي سبحانه وتعالى أياكم هدسن وسورجليين هل سوري ما أنتي وأفر يتوين كبشيشانات لو أكون لو أتنسي حياتي وورين حمدنت إلهي سبحانه وتعالى والسلام يا لما مرتشرفت كسوة بيشي حفلة قيمة يا قايها له منصب كستا يدرج كستا ومشي يفريان وحنا السلام يا سلامتي السلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام فرحت قاري تاعي وانا يمكن هذا علينا وقت جينا قالية وأنا صوتين إذن كل شقوي كلا يهولك كلا إذن كل جيران كنتي وحالي هذا قفك عن ذلك الشكرين إلهي كم شكرين. مكا وإذن كيما هذا علينا كربستان جينا يوقت جينا قيمة هي قاية له منصب كستا يدرج كستا في اللسان. أنت كذي مقعي وسيد الذي شيء إنجنير محمد حسن السعيد ولا مقعد محمية وحنا هاي مسكح دي كذا بيسي فلتانكا معتك أما كوليج كبير هذا تلاه بروفيشنال كوليج. سيدا كله وحنا هاي أساسها ماذا شافوه بدل إيمان كله فديو لهذا كان السؤال أحد فرقة تلاه فونديشن وعم فاهم دون الجمعية وحياة شقين دون توحدي الله وذل البلاد. وها فرحات همني على هاي مانتي أرضي نصيب قوية لتي إن حفلة أيقون قيب يكون نقدان هو صلى لما قيب السوق كرا أرضي كلش كا رتي لعطة الكل جناي أيوة أموالد كودا ونفط كودا كفكرة يسدي أيقون هلنا هايين حرفة كل دونا حرفة أو كلش كو هي كميدا إيو أرضي كله أو كلش كو سي ديال وحبرشة وبتوبري وهل كان لفظي أيضا إن شاء الله تعالى فاهم دونا. محرمة نقول الرئيسة تلح بروفيشنال كوليج نورمال أساسي. أنا لدي شيء كوليج كان تلح بروفيشنال كوليج على أساسي سنة كي لبقون يلا تنكي حلقي كورونا فايروس كان سببها كياني إلى كوليج كان أساسنا نبتاعي ما كان فيه إنه يصدق شيء وضنك إن جبتك هاي لكن لما كم إذا حلوا هاي ميت كم إذا لكن ولي وإلا يهدر وتابين بوسكاس مركا بنان أيام حنقول ترجعني وليس كتيرو إن الحلينو أنت كران كلا قبل كور رأي التكنولوجيا مركي صو إفتحلي قفول با ومشان فديو قبضي هاي جبتك حلو قبيه لتنكا كمبيوتر لا أما أردها تكنولوجيا وشقية ووضعك وحاء هذا الاستعمال كريم قليل يبوك يورقات يحسن استعمال كريم حلقي بربكي كذب marka waxa caqabada ahay in la helo qalab computer oo wadanka wax tar leh in la helo hadii macnaha xoriyada wadanka meel oo marka laga soo dadgalanayo oo technology laga helayo ay si jirin xilliga hadda ka sheekeynayo waa 96 iyo 95 xilliyadaas wixii ka dambeeyay oo aniga soo hana qaaday oo skillskan hadda bulshada ku celinaya martay ilaahay fadligiisa xilligaas marka waxyaalaha awoodda ku joogay waxa ka mid ah availability ga computerska inay aad u kaayeen oo qofka hadduu u baahdo kale Pentium 1 inuu isticmaalo ama 2 isticmaalo dubay ayuu ka dambeyn jiray mararka qaarkoodna waa la ilaalin jiray computerkaas oo kale waxaa iyadana caqabad ahayd oo labaad softwareska ama programyada computerka lagu shubo sida lagu heli karo iyadana caqabada labaad ee wadanka jira ayay ahayd oo haddii aad u baahato inaad program computerka ku shubto way adag tahay inaad hesho programkii waa inaad qof dalbata oo dirsata cajal lagu keenaa xataa printer oo kale haddii aad aragto dalato printerkaas iyo computerka sida la isku baraya aad iyo aad labadaas qodob waxaa boqol markhaati ka nahay maanta inay daaqada ka baxeen oo laga heli karo meel walba oo wadanka ah computer meel yaalaan albaabka fiirisaba computerkii la heli karaa meel lagu gado hebel electronics magaalada ku buuxa waxaa
kale oo marxateen ka wadanahay software-skii dhibaatadii caqabadaha lagu qabay ayaguna meeshay ka baxeen oo qof walba haddii uu software u baahdo maanta Google-kaasu gelaya website-yada software-ada free-ga ku bixiya ay ku helaya xataa kuwa lacag ah laakiin hal qodob oo aan rabo inaan annagu aan u taaganahay dadkeena u iftiimiyaan qodobkaas weli kama aan hadlin dadkana sidaan hadaan u sheegi doono uma sheegin taas waxay tahay waxaa adag waddanka oo dhibaato ku ah isticmaalka kombiyuutarka goobaha shaqada ayaa loola jeedaa xafiisyada shaqada jaamacadaha isticmaalkooda ardayda kombiyuutarada aaday ugu dhiban yihiin dhibay ku qabaan waxaad arkaysaa qof laptop haysta oo raadinaya qof wax u qora ayaa arkaysaa waxaad arkaysaa xildhibaan laptop iska wata oo aan isticmaali karin arkaysaa waxaad arkaysaa qof oo kombiyuutarkii haysta laakiin wixii ay ugu jiraan oo aan fahansanaynba waxaa meesha ay ku jiraan ayaad arkaysaa goobihii shaqada waxaa arkaysaa qof shaqeeya ee shaqo la siiyey oo goobtii shaqada ka shaqaynaya ayaa waxaa arkaysaa qof kale inuu ku dulnool leeyahay oo baaras ay ku yahay oo matalan markii shaqo loo soo diro kale uu yiraahdo war hebel adiga shaqada ii soo qabo oo qof kale uu transfer gareeyo documentigii waxaasoo dhan uu soo diyaariyo percentage-ka waddanka dhibaatada ka jirto aad ay u badan tahay xaqiiqada rasmiga ah aniga bulshada Soomaaliyeed wadana la soo shaqeyn ma lahan hadday noqonayaan dalladaha bahda waxbarashada dalladaha dalka ka jira iyo iskuulaadka gobolka banaadir ka dhisan dhammaantood iyo marka la fiiriyo bahda waxbarashada iyo ganacsiyada kala duwan wadana la soo shaqeyn ma lahan waan ogahay waan ka warhayaa dhibaatada dadka ay qabaan aadan uga warhaya marka waxyaalaha college-kan u furnay waxay tahay xanuunkaas dadka ku haya isticmaalka kombiyuutarka inaan meel ka saarno insha Allah waxaan rabaa inaan halkan kusoo bandhigo arki doontiin insha Allah tacaala dad aan u tababaray si professional way ah oo maanta haddii shaqo loo diro kale hore ka qabanayo waqti badan uusan ka qaadanaynin ee bulshada dhexdeeda ka muuqda oo laga yaabo maanta haddaa aragto inaad aadan garanaynin qofkaan albaabka ka dambeeyuu ahaa aadan garanaynin bal inaan halkaan aan kusoo dhaweeyo waxaa ka mid ah